ummadeena soomaalida ee degan maraykanka iyo ohayaba home ownershipku ama aqalada oo la yeesho maaha mid saa usii badan oo dad badani ma laha aqalo de markaa bal picture naga sii riyaysa kusoo gashay intaad guda jirtay waxyaaba noocaasa iyo okay real estate marketka hadda uma 5 sano ku jiraa so I know Soomaaliga hadda waxaa soo badanaya home ownershipka I think awalka hore guryo badan lama qaadan jirin waxyaalana way jirtaa ama dadka wadanka ku cusbaayeen ama waxay ahaayeen may fahansaneen systemka but hadda dadka waxay soo fahmayeen qof uu guri qaato so I think more than ever dadka guryo badan qaadanayaan oo Soomaaliya magaaladan Ohio ku jirto oo maxaa waxaan maqashaa mara badan in laga sheekeeyo waxaa jira Islamic financing waxaa jira aqalo xaraashin waxaasha loo iibsaday bal waxyaabaha soo shaqeeyaan so there's different ways oo qofku ku qaadan karo guri finance ku qaadan karaa ama ha ahaado islaamka ahaado ama ha ahaado bank caadi ah kuwaas waxaa la conventional lahaa ama qofku ku qaadan karaa right of cash qofku inuu hamar iska bixiyo cashka sax ama qofku ku qaadan karaa mid kale oo laho FH loan oo qofka inuu dowladda kala caawinayso ama down paymentka ama qofka credit fiican haysan so I think now Soomaali badana rabo inay guryo qaataan and I think hadda dad badan way qaateen so there's different sort suuq hadda suuq waxyaamahan uu yahay high oo waxay keenayso de guryo lama dhiso since COVID-kii I mean before COVID hatta guryo aad looma dhisin sax guryo aad looma dhiso so then waxaa dhacaysa guri walba oo suuqa soo galo maybe 15 qof 20 qof 30 qof ay guriyaas kulli rabaan so then waxaa dhacaysa price kor aado I think hadda with high inflationka oo inflationku high yahay I think one of the Federal Reserveska waxaa ahaa ribada kor u qaadayaan and I think the ribada loo qaado although we're not affect to some degree like the system ay ku shaqeeyaan ribada ku shaqeeyaan interestka so for example qofkii maanta markuu uu ama dukaanka wax yaalo inta badan dadka wuxuu qaataan credit ku qaataan so hadduu qofku uu hadda credit kor loo qaaday qof waxaa laga yaabaa inuu wixii ama iska daayo ama iibsanin then wixii markaas soo yaraanayo qiimaha soo yaraanayo so same for guryaha too so haddii guryaha kale hadduu interest rate kor aado wuxuu u baahan tahay guryaha qiimahoodana inay hoos soo dhacaan waxaan maqlay maalid baan akhriyay oo laga sheekeynayay Federal Reserve ama laanta Mareykanka u qaabilsan lacagiyo waxa ay kor qaadeen interest-kii oo ima qof markuu iibsanayo aqal oo kale ama waxay doonto waxa tabeela tahay interest-ka ama xadiga lacagta dulsaarka ah kor loo qaaday taasina waxa loo sameeyay si inflationka ama sicir bararka hoos loogu dhigo sax way oo maxay yana markuu dadkii aqal wada iibsanaya marka qof kasta uu aqal iibso taa macnaheedu waxa weeye aqaladii baa laga yaabaa dadkii affordable yihiin dadkii awoodayaan laakiin marka interest-ka ama dulsaar kor loo qaado dadkii waxaad ma doonayaan inay lacag dheeraad ku yaraanayaan then same as for other maratay hadda fiilide same as for other industries hadda for example gawaariyo kale markii oo ay gawaariyo aad u badan yahay ay gawaari badan haystaan maxay dhahaan oo gaariyan qaado zero interest saan waaye wuu soo xirigelnaan laakiin hadda uu gaari uu yar yahay supply demand ka islahayn hadda marka waxay doonayaan markaad taasi kole adigu wadankeeni waxyaabaa ka jira waxaa kamid a inaad ka warhaysa garmaayo qof kastoo lacag haysta dhulku keliya lacagta ama laan ku iibsada sababtuna waxa weeye laanku wadankeeni inflationku iska socdaa ma lihin Federal Reserve Bank ama banki waxaan kala joojinayo oo xadidaya qiimaha wax si loo kala iibsanayo marka waxaad tidhi adigu home ownership waa yara aqaladii in la iibsado waa mid yara adag in la fahmo soma hadda so hadda for example hadda rate kor so before COVID-ka dadkii waxay diidayeen 2008 recession dhaco 2008 waxaa dhacay dadkii guriga ka carareen bas qof walba guriga maxaa ahaa qaali u ahaa and then hada dhulka aaday shaqada baxday so to prevent that they waxaan made on world pandemic waa wax uu yahay oo long time I think waxa uu dambeysay pandemic dhaco Spanish flu uu dambeysay wax oo adduunkan ku dhaco waxay sameeyeen markaas rate-kii oo lagu qaadan jiray almost hoos ka dhigeen soo dadka moro qaataan wixii istaagin sidoo wixii istaagin waxay keentay
inay keento inflation sax oo qof kastaba oo qaliibsado kolba qaato marka imika TV doonayaan inay saxaan ay kor Inay saxaan. galayaan oo Ha. kor bay soo qaadeen wax hadda oo saxa ma hadda yaamahan ma ahan laakiin at least hadda even suuqa hadda weegan waxaas dhaceen waxaa ka arki kartaa different serieska gurigii suuqa ku daahaya xoogaa yar baal qor waxay ahayd qof walbo halka guri 50 qof isku rabto marka taas adigu yara dadkii keenaysa inaanay hore ugu degdegin aqliibsan ka waran Islamic finance-ka wax ma iska bedeleen iyagoo kor ma so iyagana kula wala shaqeeyaan rateyaashan so I don't know maxaa ahaa so hadda Islamic finance iyagana waxbay ku dareen sax laakiin qofka waxyaalaha Islamic finance ay ku fiican yihiin waxaa waaye rateskan of hadduu qof rukhsas ka bixiyo wax baan kan faa'iidayaan I think that's the one benefit oo ku arkay gaalada some loans waxay haystaan waxa loo prepaid penalty qof hadduu rukhsas ka bixiyo inuu ganaax la charge garanayo now qofka inuu guri qaato oo hadda Ohio per se dadka u badan guryaha qaato wuxuu badan yihiin waxaan investorska qof California New York saa dhahday Soomaaliya dhahday qofka markuu lacag haysto dhulku geliyaa waxa to save lacag value intan taas sameeyay dad badan waxaa arkaysaa California New York Texas inta wax ka iibsanayaan waliba wixii ijaarayaan especially waxaan maqlay Columbus oo kale in real estate-ka ama aqaladu ay kor u kacayaan oo market way ka sarreeyaan meelaha kale maxaa yeelay dad badan baa usoo guuraya Columbus ama marka dad badan kusoo Midwest-ka kale hadda waxa usoo guurtay Intel ka Midwest usoo guurtay Columbus I think waxa usoo guurtay Amazon xarun ku leedahay Facebook xarun so dad badan usoo guurayaan state-kan marka taasaa keenaysa in aqaladii qiimahoodii adigu u noqdo comparative ama mid dadku ku baratameen in haddaba haddii tan anigu jeclayna wax ka weydiiyo wax weeye marka laga sheekanayo Islamic finance wuxuu yahay ama si Islamic finance in aqalada lagu iibsado aqalada qofku markuu caadiga sameynayo ama uu banki lacag ka soo qaadanayo ee interest-eedu galayo sa jirto qofku aqal buu soo helay sax haddaan wax qalada leeyahay aqal buu soo helay aqalkii doonay inuu iibsado aqalkii adigu qofkii realtarkii ama iibinayay buu la hadlay waxaa lagu yidhi aqalkii intaan lagu iibinayaa qofku bankigii buu tegay wuxuu eegayaa inuu u qualify karayo loan ama uu qaadan karo loan oo bankiga laga yaabo inuu lacagtii qofka eego intuu creditkiisa eego incomekiisa eego kadibna qofkii uu haddii uu u qualify karayo bankiga lacagtii siiyana qofkii saa ku iibsado aqalkii hadhowna uu lacag mortgages ka bixiyo isagoo down payment sii dhigay 30,000 ama waxay intaas ahaato uu intii soo hadhana qofku bixiyo muddo 5 sano 10 sano kolba intay tahay soo ma interestna lagu soo qorayado 2% ama 4% waxay doontaa ahaato soo ma oo intaa iga sare aad bil kasta bixinayso saasay u shaqeyso soo ma bal haddaba Islamic finance-ku siduu u shaqeeyo dadku yara sharax because waynu ognahay oo ribadii marka lagu dul saaro ama interest-ka ama dul saarka waa wax Islamic li xaaraana oo qofkii aan qaadan karin dee bankigii Islamic ahana markuu aqal iibinayo waa inuu wax profit ka helo oo aqalkii marketka intuu ku taagnaa aanu siino waa inay faa'iido ku jirtaa soo ma marka sidee buu Islamic finance-ku uu lacag ku sameeyaa siduu u shaqeeyo bal noo yara sharax والله that's a tough question that's a good question why so the midway jirtaa ani kuwa Islamic finance-ka I can't ma dhigi kari personally my say ma dhigi kari waxaa ka garanayaa laakiin representative kama noqon kari so qof ma rabo inuu dhaho so and so waxaan dhahay lagu qabto so like I know iyaga markii contract la akhrisid there's ways dhahaan maxaa la jiray sharing ay jirto like qof walba contract soo diraan inuu akhriyo uu maardan weydiiyo expertka hadda anigu waxyaalaha oo qofka la sameeyo waxa waaye pre-approval soo qaadatay de markaas guul ku raadin karaa صح now Islamiga iyo maxaa la jiray iyo traditionalka there are some differences ku jiraan but then there's differences kaas waa in loo fadhiisto kuwii qasi was a contract way anina waxyaalaha oo ka carro I know I'm going off topic waxa waaye qof wuxuu expert ku ahaan inuu wax ka sheego horta adigu maya waan karanay Axmed laakiin haddana haddii aan eegno arunta Soomaalidan arkay waxa qofka kaliya real estate ku jiraan karanayaba marka I think waxaad samayn kartaa inaad dadka la yara sheekayso xitaa dad qofkaasoo sheekadiisoo kale qof Islamic finance ku sameeyay aqalo kaliya dad sheekadiisa ka qaado because anu siyaabaan maqlo kale waxaan maqlo xogaaluga in la yiri qofku markuu si Islamiga aqalo iibsanayo bankiga iyo qofka wada yeesha aqalko
qofkii lacagta Exactly. bal kaasoo kale baa noo yaro sharixi adoo wax dadku si So- ay fahmaan because waxa la yidhi information yar wuxuu ka wanaagsan information La'aan, la'aan sax marka waaye. badin adigu yar noo taabo warka ognaad so horta mid way sameeyaan oo ah sharing so qofka waxay leeyihiin gurigaas soo iibsatay gurigaas la lahaanaysiin and then every month aad bixisid waxaa ku lahaanaysa guriga equity so waxaa laga yaabaa guriga inaa 40% leedahay after dhowr second kabacdi inaad leedahay 60% that means ijaarka aad bixisid 6% alaas kale 40% yaa u celine and then every bill markaas you create equity aad create gareynaysaa marka okay balan yara fahmataa aqal 100,000 aad soo heshay sa 100,000 waxaa islamic finance baad samaynaysaa sa dee marka 100,000 uu taagnaa aqalku bankigu 100,000 aqalka siin maaye Sax. waa inay dee faa'iida iyagu jirtaa ma Sax fahamtay? waay. marka waxa le 100,000 waxa laga yaabaa inay iyagu siiyaan 120 soo ma Sax. saaba dheh oo 20 dulsaar ay saartaan interest maaha 20 dulsaar ma saareen soo maha oo waa lacag xadidan Sax. oon kordhayn yaraani Sax. intaasa marka 120 kun waxaad leedahay dee marka laga reebo waxaad hore usii bixisa down payment mooyaane intii soo hadhay waa inaad iyaga bil kasta in yar dee waxa kusoo hadhay aad ka siis bixisa waxay haystaan a program different programs haystaan uu qof ka dooran karo Waa. wuxuu rabo ha mid waxay leeyihiin Xilli uu ku bixinay ku xidhantahay. qofkan isla leeyihiin and then bil walba maxaa ahaa sida ijaarka kirada kirada sida kirada bixinaysa iyaga Ah, kirada siinaysaa ha ayaan kala siinaysaa kadibna markaad waa kirada loo sheerkaa soo ceshanaysid ha oo 100,000 ba waxaad Share- share- ma waxaad tidhaahdaaba aqalkii wuxuu kugu taagan yahay 100,000 marka bankiga iyo wixiiba finance Sax. gareeyeen 80,000 aqalka ka soo qaad 20 way ku darsadeen 100,000 baad bixinaysaa 100,000 haddii aad bil kasta bixiso 1,000 sax 100 bilood kadib adiga aqalka yeelanaya 100% soma Yes. ownership ad yeelanaysa laakiin finance kaga aynu ka sheekeyna bankiyada maraykanku bixiyo inuu ka duwayo rate ku Yeah, isbedelaa qaar u isbedelaan qaar Ha. qaar fix haystaan qaar fix kan laakiin isma bedelo ha kolba waxay ku xiran doon intii but then prince also qofku wuxuu ku xiran tahay inuu iska akhriyo one صح انه contract iska akhriyo inuu maaragtay and then the right sources kaas fiiriyo as I think as a community waxyaalo oo maybe fiicneen waxa waaye hearsay of maaragtay generalization oo la dhaho waxaan waa ama waa xaaraan ama waa xalaal without doing background research la sameynin ha qofaa wuxuu dhahaya waxaan waa sameeyey wuu saxsan yahay balaakiin qofkii waxaa laga yaabaa inuu asaga qof kale wax ka maqlay صح oo lahayn a point of reference lahayn ها so then qofkii oo qaadanayo islaamiga then markaas contract markii uu pre-approve bixiyo contract uu arki karaa and also waxay haystaan I think maxaa aha you should invite kuwan Devon ama waxaa UIF kuwa oo islaamiga experts ku ah oo aniga waxa ku jira wata the realtors ku jira iyaga waa the lenders ku ah oo waxaa jira lenders islamic ha lenders ka jiraan so markaas lenders qofkaas banka la shaqeeyay waa iyagaaba yeah lenders ka yeah lenders ka Okay. so for example kale guidance oo kale UIF ay jirto Devon ay jirto so then markaas then mid walba then markaas his programkiisa uu dhahay programkan waa kana maxaa ahaa wadaadkana maaragtay ka qaadanay ama review gareeyey oo dhahay xalaal waa run mar badan waxaa dhacda oon arkaaba in ay jireen dad badan oo ka shakisan ama skepticalka ah waxani ma xalaalba islamic finance baa layidhi oo islaam baa lagu leeyahay soo dan still lacag dulsaara lagu sameynaya marka adiga waa muhiim inuu qofku arko qofkan uu arko uu homework sameeyo qofka wadaadka arko oosoo arko dee wadaadka xataa uu arkayo inuu yahay wadaad dee waxaan wax ka fahamsan but again inuu qof guri qaato it's almost like a must maxaa dhahday markuu qof guri qaato haddii ijaara bixisaa markaa ijaarka bixisid waxaa yaabaa ijaarkaas adoo 15 sano bixinaysid in guri ku iibsan kartid waa runtii dad baa jira 10 sano iyo 20 sano ijaaran bixinaya ha inkastoo dee haddana qofka saas sheegana marka hore uu ah inuu qualify garayo waxyaabihii kale la kulmo ba qofka hadduu uu planning sameyn lahaa then wixii mogtahay it creates value create gains over time so qofka hadduu ku jiro process then waa also something uu caruurtu generation wealth uga tegi karo ugu tegi karo okay ka waran kasi ijaarka mogtahay every sanad waxba lagu daraa ha lacag lagu daraa so then markaas this one something waxa waaye oo aad lahaanaysid and then also maxaa dhaxalka caruurtaayo caruurtooda sii qaadan karaan صح ka waran aan yaro bedelo topica
ka waran waxaad tiri dowladda bixisaa maxaa g f maxaa ahaa FH loan fh loan fh loankaas yaa loogu talagalay bal noo yaro sheegdo wax ka garanayso ma maqal wax down ku interest leh waaye waxaa loogu talagalay dadka xoogaha oo haysanin ama down payment haysanin ama haysanin maxaa la dhihi jiray ama down payment ma haystaan ama credit ma fiicno also kuwan lenderskan qof wax u malaa inuu u baahan yahay inuu dhigo maxaa lacag badan but runtii requirementka waxaa waa 3% waana trip haddaad aqal 100,000 iibsanayso waana 3,000 Ha. taas inta Ha. laga require karaysan waa way fiican tahay inaad dhigto 20% oo 20,000 qasdeen markaas ijaarka bishaa yaraanay also the more lacag bixiso waxay ku fiican tahay dee qofka dee you don't want mota bil walba deen kuu taagan waxaa xanuunsan kartaa waxbaa dhici ko shaqada dhammaan karto layoff heli kartaa so ma fiicno inaad qofku qaato something uu awoodi karin sax inuu qofku qaato 3,000 4,000 dollar ama 2,800 oo monthly mortgage ah qofku awoodinba waaran marka waa inuu qof wuxuu u baahan tahay qof walba markuu uu diyaar ka yahay inuu sameeyo financial planning inuu qofka uu plan gareeyo dhaho okay insha allah waqtigan waxaan rabaa inaan qabto inkan waaye canshuurta intaa xaleynayaa dee markaas qofkaas markay imaato oo ibitaanka inuu ahayn qof oo just soo kacda waxba iibsanaya inuu